أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير. بسم الله الرحمن الرحيم. odayaasha dhalinyarada hawlaheenna marti sharafta oo dhan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caawa imaatinkeennan ee aad soo ajiibteen oo si wanaagsan oo sharaf leh aad u soo ajiibteen wuxuu daaran yahay xafladdii SSC Khaatumo 13 guuradii SSC Khaatumo la dhisay 2012 bishii koowaad 12keedii oo caawa ku beegan 13 sano guuro baynu isugu nimi. marka waxa weeyaan aad iyo aad ba waxaan ugu mahadcelinayaa dadka sharafta leh ee isugu yimi xafladdan. Saambiyana taariikhdeeda waa la hayaa, soo dhaweynteeda iyo inay dhiseen iyagu lafdhabar u yihiin Khaatumo. waxay idin cadaynaysaa markay halka inoogu yimaadeen garaadadeennii waxay la noqdeen markii ay tageen waddankii oo dagaal ka socdo. waxay yidhaahdeen lambarkow waxaanu u ducaynaynaa Saambiya. ina garaad jaamac wuxuu yidhi lambarkow waxaynu u ducaynaynaa Saambiya. waxaynu kor u haynaynaa buu yidhi ducadeeda afrikada kale ay ku jirto Kenya. markaa ducadii waynu qaadannay. caawana xafladdan sida wanaagsan ee aad u soo sharafteen aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. hadalkana badin maayo. anigu waan furayay uun odayaashiina way dambaynayaan. aadna waan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ayuu mahadsan yahay taariikhda iyo xogaaga oo noo barnaamijyoogaadka fiican. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Siciid Agacade oo ku hadlaya afka jaariyadda Soomaaliyeed ee Saambiya. ku soo dhawow mudan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. xafladdan ku astaysan Khaatumo waxaan ka salaamayaa intii soo abaabushay, intii ka soo qayb gashay, odayaasha, ganacsatada, dhallinyarada, gabdhaha, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo ku hadlaya magaca odayaasha jaaliyadda, guddoomiyihii jaaliyaddana wakiilka ah kana wada cududaar iyo salaamba, asagoo caawa khaatumaysnaa laakiinse howlo degdega ay ku yimaadeen. wuxuu soo faray salaan mug iyo miisaan loo khaatumaysan. waana u cududaaraynaa howlahaas ku yimid daraaddood. waxaan caawa ku faraxsanahay xafladdan quruxda badan oo sanad guuradii 13aad ah inaan caawa ku qabannay dalka Saambiya magaalada Indoola.
waxaan leeyahay khaatuma ha noolaato khaatuma ha noolaato caawa waa wada khaatumaysanna ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay hana qaado waxaan ilaahay kaloo ka rajaynayaa xafladdan xafladdeeda kale inaan laascaano uga qayb galo aad baan idin salaamayaa sidaad u soo agaasinteen iyo saaad uga soo qayb gasheen guddoomiyaha salaantiisaasaan idiin waday iyo odayaasha jaaliyadda salaantooda dadku waa badan yahay oo ma raba inaan hadalku ku dheeraado waxaa insha allahu inoo ballama sanad walba si mugle inaan khaatimo uga soo qaybnaleeyo xafladdeeda waxaan ku soo gebagabaynayaa farxad badan oo aan khaatimo u qabaana hadal badan siiba wada karin waayo anigu kulligan waa khaatumaysannahay soo maaha anigu 2 jeer baan khaatumaysna marka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan uga baxayaa insha allahu khayr baan idin rajayna hadda waxaan ku soo dhaweynayaa sultaan bashiir cabdiraxmaan oo qodobkiisa isaguna hana ku sheegi doona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين odayaasha dhalinyarada isimada haweenka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xalfaddan sanad guurada 13aad khaatumo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay inagoo dhan inaynu ka soo qayb galno sanad guuradii 13aad caawa xalfaddeedii halka ku qabanno sharaf iyo farxad bay noo tahay waxaana leeyahay inta timi soo ajiibtay waad mahadsantihiin runtii aniga si gaaray saamayn igu leedahay oo markii hawshan u socotay halgankeeda iyo dadaalkeedu dhibteeda iyo saamaynteeda runtii murugo gaaray ahayd hadda markii waxa weeye ay ka baxday oo ay iminka waxa weeye maqaamkii la rabay timina farxad bay tahay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan caawa u dabaaldegayno sanad guuradii 13aad iyadoo nabadgelyo ah shacabkii oo nabadgelyo ah iyo deegaankii oo nabadgelyo ah waxa weeye kollay waqtigu waa iska cilin hadalkana muhiimaddiisu waxa weeye hambaliyo iyo soo dhoweyn waxaan marka hore leeyahay tawfiiqda allah hayna waafajiyo nabadgelyo waarta allah haynooga dhigo deegaanka iyo maamulkaba innagana waqtigan waqtigiisa nabadgelyo iyo baraare iyo farxad baan insha allahu rajaynayaa inuu ka soo qayb galno dhammaantiin mar labaad waxaynu ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد وحن سلام يا ضمان ضدك حفلة قرحة بنسوء قاسمي وعن كان هن سلام يا قضياشة إيو علماء إيو قناع ستة إيو قبلها إيو ضميرة ضمان إن الله لي أنت كسو غيب شيء حفلة قرحة بدن إقاتمو وحن إن أستيي صدحية طبعا دي خاتمو أنا وهالكا وان كبدين لها وحن كدق لها بقولي شني الله تنجورو شني الله تنكي كوبي الله تنكي سيد محمد يدراوي شاهد قال لما ين يا بقول يا أفرتي سنة وكدم بيسي بقول يا شني الله تنكا سنة أيان كدق لها وهي كمل هيد خاتمو
sadanooyinkii guunka ahaa ee ay lahaayeen reerka aynu ku abtirsanno oo daaroodku sida boqortooyadii bari sadanadii maxamuud cali shire suldaan maxamuud cali shire sadanadii keenadiid iyo sayid halgankii daraawiisheed oo sayid maxamed uu hogaaminayey iyo sadanadii xirsi faarax wiilwaal uu isaguna hogaaminayey ayay mid ka ahayd taariikhdana meel dhow lagama soo qaada ee waxaa la fogeeyaa meeshii ay ka soo bilaabatay baa lagu celiyaa markaa intaa kaga gudbo khaatumo waxay caan ku tahay raggii caanka ahaay oo soomaalidu ay taqaanay oo maanta soomaalida joogta ay ku soo halqabsato sida hal abuuradii cali dhuux iyo sabantar baxnaan iyo ismaaciil mire iyo aadan carab iyo axmed dirir iyo axmed ismaaciil cigaal bulaale iyo raggii la midka ahaa iyo qaar badan oo kale aanan haddeer maskaxda ku haynin waxay kaloo caan ku tahay afcakame iyo cali duulane iyo ninka la yidhaahdo adan galaydh iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo raggii noocaas ahaa iyaguna oo badnaay oo aan la soo koobi karin ayay caan ku tahay oo geesiyaasha ahaa oo ku caanbaxay soomaalidu waxa iyadu taariikhda fiican u taqaano colwadeenka iyo duulaanka ragga ku caanbaxay ah intaa markaan kaga gudbo waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa khaatumo waxaan leenahay khaatumo ha jirto ha joogto ha guulaysato ha waarto xaflad waxaan ilaahay ka rajaynayaa xaflado badan oo kale oo intaan ka fara badan inaynu u qabanno sanooyinka soo socda dadka ka soo qaybgalayna aad bay u mahadsan yihiin intaa yaroo taariikhda ho kooban baan kaga qaybgelayaa anigu wakhtiyada dambana wixii kaloo aynu soo diyaarsanay baynu la iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihin waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la hal magac dhibey ama kacday ama kuurkuursatay mar haddii la yeedhay magaca abwaana la igu wacay inaan hortiinna imaado waa ku khasbanaaday ka soo qaybgalayaasha SSC khaatumo iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee horteeda fadhiya qof walba magaciisa iyo mansabku ku fadhiya ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaan mawduuca iyo gudagelin waxaan doonayaa inaan idinka jaahil saaro magaca abwaan iyo hal abuurka magaca abwaanku waa sadalad gooniya nin gaar ah iska leh hal abuurka Soomaaliyeed baynu waxaynu naqaanaa abwaan magaca abwaan marka waxaa wada qof kasta in loogu yeero uu jecel yahay magaca abwaan waxaa la yidhaahdaa ninka xujo kastoo adag loola noqdo marka dadka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan dadka hal abuurka bay abwaan u yaqaanaan waxaan doonayaa marka inaan idinka jaahil saaro magaca abwaan waxaa iska leh ninka noocaas waana sandalad gaara qof kasta wuxuu jecel yahay in loogu yeero waxaan gudagelayaa mawduucayga ee gal xareeda iyo webiyada gulunbulcaynaya gaajiya haraad kama baashaan aana goobaha ee geeriyaalo fulay iyo nin ragi kala gadweeyaan ee gudbantala adduun wuxuu gaarka ka hayaaba galalaatiga hurdada wuxuu gama adidaaba guulo lagama quustay wuxuu gacanta taagaaba guusha mar uun buu helaa geesi migani qof kasta oo hadafkiisa ku adag ama aragtidiisa ku adag guusha mar uun buu helaa guud ahaan marka dadka reer SSC gaar ahaan waxaan leeyahay hadafkiina waxaad u mari doontaan dhibaato iyo maxaan ku sheegay marka adkeysigeedii baa idinka baahan yahay guusha mar uun buu helaa geesi miiganiye calan iyo guyaal midkaan goobaya tahay garka iga sarreeyay inaad dowladda guudkayga dhaaxaan gadoodiga u maray goob xinjiritaal dhaaxaan gadoodiga u maray goob xinjiritaal leh godood iyo maantii afxumana lagu geesaasay ee gaalkii caddaa gibirka doonayay geerida raggii doortay ee kuu go'aan ahaa ee gaalada raggii kaa dhacsaday ee giilamaan ahaa ee gaashaandhiggii reer yurub markaan geliyey duulaanka garmaqaatadii markaan koofil waran ku googooyey ismiir gowraca gaaf lagu tuma aan ismiir gowraca gaaf lagu tumaye
abaalkan kuu galay haddii loo guturinayo dhaaxaan sidii gabar rajaya guudka kugu waday dhaaxaan sidii gabar rajaya guudka kugu wadayey goodir iyo markii aad sidii gool isaga naaxdo gacalkii kala lumiya dadkii gabiibo meel aaday guud ahaan Soomaali baan doonayaa inaad isku geysaa galka laga xanuunsaday haddii garab inaafoo gacantayda midigtayda bidix waa u gurmanaysaa ee gacalkii iyo sokeeyaha isdilay ee eedu kala gaadhay guud ahaan dadkaygaan rabaa inaad gaar u noqotaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبر السلام يا مرويك يا مدنياش كسوق قلي حفلة قيمة بدن يسند جوردا كسوريقتي صدق يتمنك السنة كسوريقتي مالتي اللي بدل لو تابع على كأساس خاتمة وحنادها مبليين يا شعب وينها سوماليات الرئيس أساسي خاتمة دمانتود وحنلاقي هاي calanka quruxda badan ee halganka dheer loo soo galay Ilaahay waxaan ka baryaa inuu barakeeyo oo bogaadiyo sanadaha dambe oo inuu ku soo foolana insha Allah asagoo inta ka siraadan insha Allah xafladiisa dhigno anigu waxaan ku hadlayaa afka dumarka Soomaaliyeed baan ku hadlayaa especially Zambia magaalada Ndola waxyar baan wataa waxyar aan watana waxay ka turjumaysaa dareenkayga aan ku cabirayo calanka iyo halgankaas ay maxaan ku yiraahdaa bulshadaas reer Soomaaliya xatmaan kula wadaageen calankan ku dhaato dhigi ragaygiyo kando xasiisto dhagartii halyaygo kana caabu soo dhacay ka dhaxsaday cadawaha dhaxalkiyo martaydo kan January dararti dhulka xididka hoosiyo talix kaga dhawaaqeen sool ahaan ka taago hayga dhicin hadheelin laqashiyo xanaano nina ku dhex jooga nina doori دف بكوب النول يحيي انت دورت شرفتا كديدي ذا حمانتا وغفلا دول كيبو انت كبدا عدي وحن تبقى يا برام حقيقة ووحن دونا هاينا يندهرورت نودادا وصولو دوغا إنداهنو دهاوذان وقيلو نو درارو اندوبها وعنا مقالي يميبا ودهان كنو دقا ودعدي يدين تودهان كنا لغو دقا قبيل كان تاقا وإهين انت نهاسلنا نبضواتي روائنا لسوتنا تيقاد قبل كهنا وإهنا ترتيبسنا شعب وإنه نتاها غير وحيتلا والدولة نيمتها موائهنا دوني ذاتسنا ضيحا قوتي اكسناها يا كذباتنا درويش كونا بددون ودقال كدقا goboladii dooga iyo daawashada lahaa goboladii dooga iyo daawashada lahaa wala si garanaya gobolka Sool Sanaag iyo Cayn aad bay u siraadnaa jireen insha Allah goboladii dooga iyo daawashada lahaa nimba inuu dacalka haysta manoo damba gumaysina noo dambeeya manoo damba ardaygu daanahiisa iyo waa ka tagay duruus dugsiyaday dhiganayeen waa ka wada dumeen qorigii daba lahaabaha digta lagu hayaa dugaalkii laas caano taleexdii la daawan jiray
lascaano dacalkeedi iyo dhirtii wadaadnayd dabayl baaqahadayo hadkiibaha ku degay balada ina mahagtayse looga bixi karaa birtaana dhammahaysayse looga bixi karaa nabadiyo bahadigo hobno la wada ballamo darwiishko wada heshiihiyon balahaya jirin alloon barinaha sidaa looga bixi karaa haddii wiilkii la doorta wax lala dabaro diyaar loo yahayo dulduhuleeladii la dado nin walba daraftuu jiraa daafac lagu yiraa ondubka wada xirono dantaha waa la heli lahaa allahayow daa-in iimaanka noogu deeq nabadana wada deeqday rabbiyowna doojisaa aad baa umahadsantihiin dhammaantiin insha allah sanadkiisa kala baratay bartay allah inuu garsiiyo bismillahi raxmaani raxiim dhammaan waa salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda oo aadka u qurux badan rag iyo dumarba waxaan kaloon u mahad celinayaa qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyey xafladdan aadka u qurux badan caawa halkan waxaa la isugu yimid waddanka Zambia magaalo madaxiisa labaad ee Indoola xafladdii sanad guurada 13aad ee SSC Khaatumo baa halkan la isugu yimid oo adduunka daafihiisa ka dhacaysa waxaan leeyahay hambaliyo intaa markaan ka gudubno SSC Khaatumo marxaladda hadda aad u fiican bay maraysaa si wanaagsan bay hadda hawshada u socotaa waa maamulka ka duwan maamulada Soomaaliya maamulkaasoo xaqiijiyey midnimadii Soomaaliyeed waa maamul istiraatiiji oo ka duwan maamulada kale oo Soomaaliyeed waxaan qabaa anugu inay tahay maamul dhammaystiran waxaan maqlayay dad leh SSC Khaatumo waa maamul dhammaystiran ma aha SSC Khaatumo saddex gobolka Sool gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer oo ay buuhooda ka mid tahay maamul saddex gobol isku raaceen weeye waana awoodaa inay maamul noqoto waxaan leeyahay hambaliyo idinkana sidoo kale aad baan idinku mahad celinayaa si sharafta leh uga soo qayb gasheen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم odayaasha ganacsatada haweenka iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan 13 guuradii ka soo wareegtay asaaskii Khaatumo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadkii soo qaban qaabiyey iyo guddigii soo qaban qaabiyey xafladan quruxda badan lagu maamuusayo 13 guuradii ka soo wareegtay Khaatumo aad ayaan ugu mahad celinayaa sidoo kale ka soo qayb galayaasha dhammaantood waan u mahad celinaynaa waa mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina quruxda badan aad xafladan timaadeen hadalka intiisii badnaa waa la yidhi haddii uu heesa ahaa iyo hadduu gabaye ahaa iyo hadduu buraanbur ahaa iyo haddii uu ahaa hadal lagu soo dhaweynayo xafladda raggii iga horreeyey iyo dumarkii ayaa soo koobay anigu waxaan uga faa'iidaysan rabaa hal fariin ayaan waxaan rabaa inaan u gudbiyo madaxda Khaatumo SSC fariintaydu waxa weeye Khaatumo waxaa la aasaasay xilli colaadeed gobolka waa la wada og yahay wixii soo maray oo dagaal ahaa sanadihii laga soo gudbay madaxda waxaan ka codsanayaa inay si wanaagsan oo cadaalad ku jirto
ay waddanka u maamulaan oo dadka lookalka oo dhulkay madaxda ka yihiin ku nool inay si cadaalad ah u maamulaan oo wax ugu qaybiyaan si nabadgelyada gudaha loo sugo. waxaan kaloo ka codsanayaa madaxda reer Khaatumo deegaanka iyo dadka derisyada la ah in si nabadgelyo ah loo wada noolaado oo ay ka foojignaadaan colaadaha Soomaaliya hadda ku baahay inay qayb ka noqdaan. reer Khaatumo dhib badan baa soo maray inay hormuud u noqdaan in deegaanadaas ay nabadgelyo ka timaado oo ay iyagu nabadda hormuud u noqdaan oo colaadihii nabad lagu bedelo oo qoriga qalin lagu bedelo oo ardayda iskuulladu ka xirmeen iskuullada loo furo oo dadkii ganacsatada ah dukaamadoodii furtaan oo noloshii bini aadanka ku noolaa dib loo soo celiyo. nabaddu waa tiir bay tiri gabadhii hadda buraaburaysay. markay nabaddu waa muhiim waa tiir. al-amnu cumuudu xayaat min alcarabta. amniga iyo nabadgelyadu waa tiirka nolosha ku taagan tahay. markay waxaan ka codsanaynaa madaxda reer Khaatumo SSC inay nabadgelyada ku dadaalaan mid dibadeed iyo mid gudaha labadaba. mar labaad waxaan leeyahay hambalyo 13 sano guurada ka soo wareegtay asaaskii SSC Khaatumo. waxaanu rajaynayaa guul SSC Khaatumo iyo maamulkeeda iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan guul baanu rajaynayaa. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum. waxaan ka cudurdaaranaynaa waqtigoo dheeraaday awgeed inay dadku hadalku wada gaadhaan. marka haddeer waxaa noo soo gebagabeynaya oo khadka si toosa ugu jira guddoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka SSC Khaatumo guddoomiye Jaamac Yaasiin Warsame. waanu ku soo dhaweynayaa guddoomiye. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كلاميا وهمبليينيا bulshooyin ka isugu timay munaasabada xuska aasaaska maamulka SSC Khaatumo. dhammaan ka soo qaybgalayaasha jaaliyadda reer Zambia waa idin salaamay. qof walba nasibkiisa iyo magaciisa rag iyo dumar dhalinyaro mas-uuliin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. والسلام يا جماعة وحان وقاعدين غير استثمار شغلنا مرتبطة حفلتها اسبوعين مادين وحقيقي كتر شوية طريقي شعبا دوينها غير Khaatumo من الشغلان بقى إذا كنا هنا زامبيا يهلكا شغلانو أذكر ساعات أو ساعات الاستواء يجينا علينا وحان دردار ميا إلى علمتا من نظام وده شركة abaabulnaanta loo abaabulan yahay in deegaanka wixii ka soo cusboonaaday iyo wixii ka jiraba gacan libaax laga qaato. taasoo ka iman karta midnimo iyo daacadnimo iyo abaabulnaan la abaabulan yahay. ciddii abaabulan ciddii maamulan ciddii waxooda u diyaarsan yihiin baa guul gaaraysa. idanka ilaahay waxaan ku dadaalaynaa muddada soo socota wixii inaga dhimanaa oo hawlo iyo shaqo ah oo maamulka la xiriiray in la qabto. isla markaana maamul deegaanka iyo dadka laga difaaco cadowgii awalba gardarnaa haddana soo socday. waan hambalyaynayaa xaqiiqdii ka qaybgalkiinu farxad weyn buu ii yahay. aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. ayna sharaf weyn noogu tahay ka qaybgalku. marka hawshiina wata وسلامتي. السلام عليكم ورحمة الله. waxaan salaamayaa bartasharafkan iyo xafladan quruxda badan martida ka soo qayb gashay odayaasha jaaliyadda uqaasha waxgaradka hablaha sharafta badan dhalinyarada bulshada noocyada kala duwan ee ka soo qayb gashay aad baan u salaamayaa. bacda salaan xafladan waxaynu u qabanay 13 guuradii SSC Khaatumo. dadku waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo ay dadka qaar badankoodu u arkaan SSC 2023 baa maamulkeeda sida rasmiga loo dhisay. laakiin waxaa laga soo bilaabayaa markii shirkii Khaatumo 2 ee Taleex la isla qaatay ee ismadii 13 isin iyo cuqaashi iyo siyaasigii iyo nigarboodkii inta la isugu tegay salka loo dhigay ee la asaasay SSC. walow aysan shaqaynin intii badnayd madaxda xilligaa la sameeyey oo marxalado fara badan oo kala duwan aynu soo marnay oo wax badan leh oo niyad jab leh. haddana
dadka qadiyadu ay dhabta ka tahay waayahooda iyo inay mar uun hadafkooda gaarayaan qalbiga ayay ku haysteen waxa weeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay meesha ay marayso xafladda quruxda badan ee noo qabsantay waan u mahadcelinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan waxaa lagu xuseeyey xafladdan SSC khaatumo puntlandna kama marna SSC khaatumo haddaad qashaan puntlandna waxa weeyaan waa garab taagan tahay waa bitaankeeda labaad waxaan leenahay SSC guul puntland guul dhammaan Soomaaliya guul Soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonimo waxaad moodaa hadda in ay xoogaa Soomaaliya ka yarniyo tabsanahay oo ay colaadihii iyo ay tirabateen haddana rajada Ilaahay lagama quusto Soomaaliya guul baan leenahay SSC guul baan leenahay puntlandna guul baan leenahay waxaan soo koobayaa hadalka waqtiga oo dheeraaday oo qolada rawaada xoogaa ugu dheeraatay aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan idinka mahadcelinaynaa camiraadda iyo sida quruxda badan ee Soomaalinimada iyo walaalnimada iyo ehelnimada ku jirto ummadda Soomaaliyeed halkaas ugu timid dhammaan waan wada mahadcelinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان كسوق قلياش حفلة وضياشة وحجراتك حبلها دمانتين والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكوادم هذا الكمعنيه سواد ماضي وضياشة يري أنا قبيان مئيه لكن ابتياش شيء سعيد عقده هداية يقبوا ويا خاتمه والله ما شهر صدق شهر وبضنتها هي abtiyaasha insha Allah maanta tixgabaya oo yar oo kooban waan oran doonaa insha Allah garaale gugii hore maamulkeeni gaamuray intii geesiyaal iyo gabyaa iyo nin caaniyo garashiya aqoon loo godka loogu aasaa gabiintii ka tuudhee cadowgiina gaamuray yuusan noo gadaal noqon abtiyaal garaadadu gobaynimada weeye guurti iyo nin taliyo gacal iyo xigaal iyo gobannima ku dheexane abtiyaal guyaal badan guushaan hibayseen yeesan soo gadaal noqon intaas waa anuu gabyaamayhi waa iska dhowreeray insha Allah rajaynayaa sida odayaashu sheegeen xaflado tiro badan oo kale oo khaatimo isteeda inaan ka qayb geli doono Zambia khaatimo ha noolaato هنولاتو Soomaaliya هنولاتو Soomaaliya هنولاتو Puntland هنولاتو Soomaaliya هنولاتو إن شاء الله kuwa badan baan ka qayb gali doonaa hadii alla yiraahdo sanad gurada dambana si Saciid Cagacad sheegay waa inoo Soomaaliya la saacana aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.